shabeellada hoose iyo shabeelladii dhexe maantay labaduba cibaada ka dhacday. maasha allah ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee xoogga dalka dhammaan ciidanka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambaliyo maantay digniin weyn waa wada waa midda ugu muhiimsan oo u soo galay meeshan laba qodob weeye dagaalka ka dhacay shabeellada hoose iyo dagaalka ka dhacay maanta shabeellada dhexe labaduba guulahoodii markaan idin sheego waxaan kaaga hormarinayaa guulahooda arrinta kale oo digniinta oo aan maanta u wado gobolada dalka ugu waaweyn fadlan hadalkayga gaarsiiya meel walba oo ciidan ku joogo oo dadka shacabka lagu naafeyn rabo waa kaa codsanayaa maantay fadlan gaarsii soo dhawaada waxaan ku hormarayaa dagaalka maanta ka dhacay shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe maantay soo weerareen shabeellada hoose meesha la yiraahdo u dhiigle iyo bariire iyo aaggaas iyo dhulkaas adiga aaggaas dhaca saakay 4 subaxnimo markay ahayd oo la suxurtay ciidamadoo tukanayo diyaar garaysan oo salaada ilaahay u taagan ay soo weerareen habadii saaka 4 bilaabatay 6 saac oo duhurnimo soo afjaranta waxaan wacay dhalinyarada joogta oo dagaalamaysa qaarkood meeshan la yiraahdo shabeellada hoose kuwii xabadda ridayay aan waxay ii sheegeen inaysan xisaabin karin meydka qawaariishta oo taalla goobaha meel walbana lagu laayay waxay ii sheegeen khasaarada soo gaartay inaysan aad u badnayn oo sida ay nimanku filanayeen aysan noqon ay ii sheegeen waxay ii sheegeen goobihii loogu yimid ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan meel looga dhaqaajin meel laga xeeladaystay oo yar ma sheegin laakiin intii ugu muhiimsaneed inaysan soo haweysan meelihii banaanka ahaa ay soo yaacayeen kulligood la wada dhigaa la ii sheegay waa kaa codsanayaa barnaamijkan maantay duurka la gal xilguntada ka wareeg oo igu hor wareeg oo hor istaagin waa soo laabtay qawaariistii cibaadadeeda ana u soo laabtay waa ka maqnaa ayaantan waa u soo tabaabashaystay waana u soo fariistay fiidiyogayga qaado meel dheer gaarsii taas waa shabeellada hoose shabeellada dhexe markaan kula aado meeshii laba garas la dhihi jiray oo labada maalmood u dambeysay dagaalku ka socday horta ciidankaasi awood la ula wareegay qawaariistiina way soo afjareen sumadaale meesha la yiraahdo qaraxyada saaka ku soo weerareen guuldarana iyadana ka raacday waa laga difaaco arrinta ugu saddexaysa arrinta ugu muhiimsan oo rabo hadda inaan la wadaago ciidamada cirka saddex barobakisa waxay soo gashay biyacado waxa wata tabajilic in la yiraahdo nin dubla iyo nin murursada oo laba amiir midna amniga qaraxyada uu qaabilsan yahay midna amiir sare uu yahay labadoodaas kala wata shiraray wadaan ujeedka shirkaas wuxuu daaran yahay arrintan hadda soo wado oo qodobka digniinta uu xambaaran yahay arrintan ila qaada reer Muqdisho reer Dhuusamareeb Wisil meesha la yiraahdo beledweyne meesha la Jowhar intaas oo meelood way digniinta waxa uu wado ila qaada arrinkan maanta 17 Ramadaan bishan Ramadaanka waxay nimanku ballan qaadeen intaas magaalo oo hadda afkay ku soo qabtay meeshay fursad iyo chance ka helaan qarax weyn oo gaadiidka qaraxyada la qaybshiyo qaraxaas meeshuu ka gali karo oo chance laga helo in la geliyo chance-ka lagu sheegay marka wuxuu yahay waa is afgarasho ciidan lacag lagu harqiyay oo la yiri naga wareeg waa qodobka koobaad oo baabuur ka wareega sida weligeed badhici jirtay qodobka labaad dhuumaalaysi inta qaraxyada lagu galiyo magaalada Muqdisho in lagu dhax abuuro goobaha magaaladaas ay ka mid tahay sida Jowhar Muqdisho Dhuusamareeb Wisil kale intay meelay u dhaarteen waa iyo beledweyne oo kale inta meel iyo Jowhar meelay u dhaarteen in lagu dhax abuuro ama si xariiftinimo lagu soo galiyo waa rakaab lagu soo galiyo baabuurta waaweyn iyo baabuurta leela calaawada la yiraahdo wax kamid ah in isticmaalayaan baabuurtaas ayada ah qaarna shabeellada hoose u taagantaa qaarna shabeellada dhexe u taagantaa jaaniska marka meeshii laga helay laga gelinayaa warkayga meel iga qorta caawo 17 Ramadaan waxaan qaadaynaa hadeen dagaalkii muslimiintu qaadi jireen oo kale aan qaadaynaa hadeen ama waa ku guul dareysanayna ama waa ku guuleysanaynaa waxaana ugu badan dagaalka la sheegaya awood kale hadda ay dagaal inta ku soo qaadaan ay ku soo aadaan ciidamada hadda male oo waa ka dhamaatay nimanka tabarna waa isugu dhamaata waxay kaliya loo badiyay 80% qaraxyadaas baabuurta waaweyn saaran
inay magaalooyinka u soo wadaan ciidamada Soomaaliyeed marka galabta waxaan uga digayaa in meel walba oo jid ku yaallo meel walba qawaariista laga xiro si fiican amniga looga shaqeeyo siiba magaalada Muqdisho waa magaalada Muqdisho meesha ay boqolkiiba 70 ay dhaheen waa meeshaan rabno kow magaalada Muqdisho dhanka jilib marka la yiraahdo way qorsheeyeen labo Daarusalaam xaggeedana waa qorsheeyeen ceelasha biyaha iyo way ka leexleexdeen way adagtaa la yiri amnigeedu runtii xaqiiqda dhabtaadii ugu imaanaysa aniga waa Soomaaliya wali maana afurin kalaan xaraana inaan ku soo gudbiyo ma rabo qawaariista xogahan ka soo aruuriyaan ku soo gudbiya ayadoo qoraarahan kula soo wadaagay ayadoo kilibaran qalabtan ku soo duuba qawaariistii ciribtirkii waa meeshii ugu dambeysay gawaabsigii ugu dambeysay guulihii darradii ugu dambeysay ay maraysaa duqeynta ku sii dhacday maantay intii ka fakatay ciidamada dowladda Soomaaliya oo qaranka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya intii shabeellada hoose uga fakatay duqeyna lagu sii laayay xalay saqdhexe anoo la hadlay wiil askariya oo jooga laba garas agteeda difaac uga jira 6 kilomitir meel u jirta intaan la qaban maanta ka hor anigoo maqlaya jug inta yartaan waa maxay jugtaas waa duqeyn ku socotuyin nimanka agtanada jooga saasay duqeyntu ugu socotaa nimankan kala joogsi male shabeellada hoose lagu gumaaday tii dhaxaa lagu gumaaday ummadda Soomaaliyeedna qawaariij waa ka guulaysanaysaa waxaan hambalyo leeyahay ciidanka Puntland jooga oo buuraha calmiskaad la yiraahdo oo adag ka dagaalamaya hambalyaan leeyahay reer Puntland anigu waa idin hiilinayaa afkaygana waa kugu hiilinayaa warbaahintan waa ku soo daraya laakiin waxaan ka rabaa fadlan rag waxaan ka rabaa isoo tabiyo wararka dhulka ma kala aqaano meel cilaa iyo meel qaladna kama hadli karo beenna ma soo sheegi karo nin weyn aan ahay waxa isoo sheegtiin oo saxan soo gudbin kara dhulkan ka hadlay waa kala aqaana shabeellada hoosaan kala aqaana midda dhaxaan kala aqaana galgaduudaan aqaana mudugaan aqaana dhul aan aqaano way waxaan ka hadlaano laakiin meel aan aqoon kama hadli karo waxaan ka codsanayaa reer Puntland ina isoo gudbisiin wararka calmiskaad meesha la yiraahdo si cadaalad ku jirto oo qawaariista nacaybkeeda aan uga hadlaya nacayb aan nacbahay qawaariista ummadda Soomaaliyeed in laga sufeeyo aan uga hadlaya korkaas aan idin geenaya guulaha gaarteen aan kor u qaadaya ciidanka Puntland ee daraawiishta Puntland ee buuraha korkooda ka dagaalamaya xaq u dirriyada waa idin garab istaagaya ballan kaga qaaday laakiin war aan tibin karo iyo meel aan aqoon kama hadli karay meeshii ii sheega meesha dagaalku ka socdo guusha la gaaray waxa la qabtay kaliya iga soo duuba codna igu soo dara way ka codsanaya hadaa kaliya iga soo duubteen codna igu soo darteen oo aan soo qaadan waayo kana hadli waayo magaceedii meeshaas iyo dagaalkii iyo guusha aan soo qaadan waayo nin dhinac u badanaana ummadda Soomaaliyeed bisha Ramadaan oo barakaysan Ilaahay ajirkeeda ha siiyo qawaariistana jabkay la maaqantaa Ilaahay ha ka qabto magaalada Muqdisho si gooniyaan ugu digaya magaalada Muqdisho si gooniyaan ugu digaya caawi bari 18 17 19 Ramadaan kan oo dhan laakiin 17 18 u diran yihiin digniin weyn aan u diraya magaalada Muqdisho fadlan ila qaad warkan xil guntade YouTube-ka iyo page-ku soo gelinaya wararkiisa TikTok حتى وادقيا مال كستان كدغالميا جي ميل والبا وركان ادي maanta taariikhda aan ku wada warkaan waa 16 masoo 15 bisho ادي ادان idin salaamaya